سيدنا عبيرة اللي نفسه بنو مشي كرتو اللي جي الذهب أفري وحصل جوا إن راتب له قطني جل بعثنا أنا قياسته أنت اللي حيصير كل يسقال بقول يشنتي إلى كل يسقال بقول يسديدي اللي قاعد يسوحها حل الأولك الصوماليين ولي عن دبل وكرة قيم حبها موي حل عن قميص وبدها ذلك قوة فين حل أي صومالي اسكوا قبته تدخل تحمل التري صفرها بالبركة صباحنا أي برا وسوق قال التري dalku dawladda xamalahayn sida dadkeena Soomaalida tal waliba wuxuu lahaa madaxdiisa u gaarka alaad iyo nabadba guddoonka gabadh dambaysta ah iyaga ayaa laga sugtay dhinaca kale meelaha qaarkood waxa iyaguna ka dhisnaa maamullo silsaan dawladeed lahaayo ilaa heer shisheeyaha ka madax bannaana kuwaasoo ay ka talin jireen boqorro iyo suldaano dalka u dhashayo madaxnimadoodu ay kala dhaxlid ku saleysnayd waxaa ka mid ahayd sadanadii hobyood iyo tii bari iyo tii haddii alla guurooya daladii iyo boobroontii afgooy waxaase intoodaasba ka awood badnaa kana magac dheeraa dhaqdhaqaaqii gobonnimo doonka ah ee daraawiisheed kaasoo dhidibada u aasay halgamaagii gabayaaga iyo aqoon-yahankaba ahaa sheekh maxamed cabdilla xasan oo sayid maxamed caanku ahaa wuxuu ahaa dhaqdhaqaaq aan qoloqolo ku dhisnaa jihaad diinta looga qeyb helay awooddii maaraynta iyo maskaxdii weyneed sayidka ayaa suuro gelisay muddo dheer daraawiisha inay gacanta sare geeska afrika ku yeelato dowlado waaweyn sida ingiriiskana ay u goojadayaan waxa uu xilligaani ku beegan yahay kolka taya ahaan markii ay maansada Soomaaliyeed ugu wanaagsanayd ee gabayada quruxda badan fariimaha la isugu tirin jiray waxaa noolaa koox maansayahana oo la wariyay dhammaantood inay dhasheen guddi caanka ah ee gobaysana la magac baxay loona badan yahay inuu ku aadan yahay sanadkii 1865 kugaas maansayahanada loogu abtiriyaa ama la sheegay in dhasheen ma yaray waxaana ka mid ahaa sayid maxamed cali dhuux iyo qamaan bulxan sababtii kolka ay silsiladan xalacdeera ku bilaabantay xilliyadaas waxaa bulshooyinkii Soomaaliyeed ee raacatada ahaa oo caada ahaa magac iyo awood siyaasadeed ninkii rabaaba inuu ku dadaalo siduu kula xidhiidhi lahaa mid ka mid ah qoysaskii ka talin jiray maamuladaas aan carabka kusoo dhufanay haddaba misal ciideed ahaa oo la oran jiray Axmed Baraare waa ogaadeen oo waa reer Cabdillo waa reer magan warfaa ugaas magan waa ina Baraare Maxamed Nuur Caburiye sidaa la wada xusuusan yahay wuxuu ahaa ninkayga marka talin jiray oo keligii taliya ah oo keli talisnimo caan ku noqday Axmed Baraare wuxuu ku abtirsanayay kolka qoysaskii iyaguna deegaamadaas ka arrimin jiray markaasuu doonay inuu la xidhiidho reer Kennedy oo 60 sano muddo ku dhow gobolka mudug magaalada Hobyood uga talin jiray yaadka iyo xaqada gabadha reerkooda loo walwaala ka soko markaas oo kale waxa uu ninka guurdoonka ahay sii kaxaysan jiray dhalinyaro iyo garmadow ay maadeeqayeen kuna tilmaaman kula joog wanaag haybad iyo iftihaamayntaba Axmed Baraare hidahaas kama uu ildoofin markuu Hobyood istaagayna waxaa hareer socday dad dharankooda lala afjabay oo gobonnimadoodu ay foolkooda iyo hubkoodaba ka muuqato raggaas ayaa waxaa ka mid ahaa nin lagu naanaysi jiray xalacdheere ha yeeshee magaciisa runta ahi uu ahaa Xuseen Casuur Cali silsiladani waxay kolka ku saabsan tahay kaftan ninkaa ku baxay iyada oo maansayahanada qaarkood ay hunguri weyne iyo cirweyne iyo hunguri xumo intaba ay ku tilmaamayaan qaar kalena ay ka daafacayaan kolka qaarkood inkastoo arrimo kalena lagu soo qaaday haddana ujeeddada silsilada isaga ayaa tirdhexaad u ah isaga ayayna doodu ku socotaa kolka sidii caadada Soomaalidu ahayd nimankii dadabgalka ahaa ee ogaadeen ee doolle iyo ciid ka yimid Axmed Baraarena oo hor socday si wacan baa Hobyo loogu qabtay waxaa loo asteeyey guryo ay habeenkii ku hoydaan iyo geedo waaweyn oo ay maalinimada harsadaan halkaas ayaa lagu dhaqaalayn jiray muddadii uu wadahadalku u socday lagala xaajoonayay yaradkii ay wadeen iyo gashaantimaha reeraha midda ay doonayaan intay tahay markii Axmed Baraare gabadhii la siiyey ee Sodok Seediyaal iyo Sodohdiiba ay ismarteen xaragadiina lagu heshiiyey wax uu bixiyey markaa iyo wax uu ballan qaaday markaas ayay isaga iyo raggii la socday amba bax u faarumaysteen ha yeeshee waa meel wax laga wadaa haddiiba ma ay gadoomin Hobyo iyo xididkii dhexdiisa ayay toddobaadyo kale isaga sii nagaadeen maalintii dambe koox iyagii ka mid ah oo geedihii ay harsan jireen harsanaysa
ayaa haldheere oo ku jiray waxaa alla afkiisa ka keenay war oon baanu u dhimanay yaa loo duceeyaayo seeraha noogu taga oo biyo nooga keena sow iyagu ma daadine waxaa geedka meel dhinaca ka fadhiyey oo wax ka harsanayay kura yar oo ka tirsanaa cidaha ay martida u ahaayeen kiibaa orod istaabtay oo odayadii cismaan maxamuud inta u tegay ku yidhi nimankii ogaadeen baan soo maray oo waxay lahaayeen oon baanu u dhimanay yaa reeraha biyo nooga keena mid ragga ku jiray odayaasha ah la oran jiray cali sharmaarke ayaa kolkaa kuragii wuxuu ku yidhi maandhow ninkii hadalkaa yidhi nimanka ma ka garanaysaa magaciisa ma taqaan wiilkii wuxuu yidhi magaciisa garan maayo waase ninka dheere aadka u casee quruxda badan ay haldheere ku lahaayeen laakiin magaciisa kale anigu ma aqaan waxaa la yidhi halkaa ayaa cali sharmaarke gabay uga muuqday waa gabayga bilaabay silsiladda haldheere waana gabayga keenay in ay gabayo badan oo jawaabi ay ka soo noqdaan cali sharmaarke waa sidaan soo sheegnay waa reer hobyood waa majeerteeno waa cismaan maxamuud oo baha yaquub waa qoyskii xukumay ama ka talin jiray hobyood midda kale wuxuu ahaa ninkii dhalay allah u naxariistay madaxweynihii labaad ee soomaaliya cabdirashiid cali sharmaarke marka aanu gabayada intaanu wadno waxaanu sheegi doonaa gabayaa kasta qolada uu dhashay iyo halka uu wax ka warmaynayo sidaa darteedna waa inaan lala yaabin haddii aanu sheegno qabiilka oo soo celcelina sababto waxa weye gabayga soomaalida lama garan karayo haddii aan la sheegin cidda loo tirinayo iyo cidda tirisay xiriirka qabyaaladeed ama xiriirka toleed oo ka dhexeeya marka cali sharmaarke tixdiisaan soo socota ee bilowda silsilada sidaan soo sheegay wuxuu ku faanayaa inay yihiin dad hodan oo ilaahay gacantooda wax geliyey oo iyaga uuna ay awood u leeyihiin haldheere oo kale inay muddo dheer hayaan waa tixmaaga wuxuu yidhi nag yahay horyaalnimo ninkii loo huraaye nag yahay horyaalnimo ninkii loo huraaho nag yahay horyaalnimo ninkii loo huraanahay haybkaiyo waa laga hayaala ogaadeene awal baan hordhaaladkii noqdiyo hanadkii daaro awal baan hordhaaladkii noqdiyo hanadkii daaroode gobernimo inay hodantahoo hibaadna loo siiyey isagoon hanti wadan bacdiina nala horaynaynin haldheere nimankii sannado hinjiranaho intaa ayaa tixdaa naga soo gaadhay sida muuqata waa tix gaaban si aad u culus waxaan muddo isweydiin jiray ma tahay niman masti ah oo haddana xidid ahay tixay mudan yihiin waxaa sukay qaban waayey hadalka halac fududaantiisa iyo yaa biyo noo keena iyo tixda cali sharmaarke culayskeeda muddo haddaan saa ahaa ayaa waxay soo gaadhay sheekadan soo socota waxaa la sheegay axmed buraale markii uu ragga urursanayay doonayay inuu hobyo tago raggii uu damcay inay raacaan waxaa ka mid ahaa nin gabayaaha loo oran jiray ismaaciil qoorleexo ogaadeena reer cabdullaahi oo maalin guuraho aad geyigaas caan uga ahaa ninkaas ayuu damcay inuu raaco oo uu ku sirtago ragga uu ku sirtagaayo uu ku darsado wuu ka diiday haddana uu ku soo noqday oo wuxuu ku hunguri geliyey geela yaradka ah ee kontonka halaad ahee uu wado ee uu hubyogeyn doono marka uu bixiyo oo laga gudoomo waxaa loo soo celin doonaa 25 halaadoo magacooda la yidhaahdo ama hiddaha soomaalida yarad sooran 25kaas baan waxaan kaa siinayaa buu ku yidhi 10 halaade ismaaciil qoorleexo in adeer uga raaco hubyo raaco gabadha ila doon ismaaciil qoorleexo wuu diidayo wuxuu yidhi geel nimankaa majeerteen la siiyey oo ka soo noqonaya aniga ima muuqda mana dhici doonto ilaadaa wax siiye waddada iyo haddii alla kuu doonayaa safarka iga daadgeli maaye meeshaa geel ka soo qaaday maaye waxaa la yidhi gabaygu tiriyo gabaygaa waxaa naga soo gaadhay haaneedka uma laabi karo geela hubayooday hurdaba waa ku keenaa ilaahayba iyo laane haydaarto caafiba ma qaba waana hodankaasi habeenkan dhashaa ila socda halaca ii waaba
ولين عافي اللي هذا القي قال لي يقين وحوليها أنا اللي كوا القبصة وحوها بالي النسبة أتصبر متدارو ما أنا قد ما يقول سبعة كسر وانا به حدين اللي قوري وقولتني لبقى الموضوع كده لبقى الموضوع كحستة وحي يلا بحلو لبقى الموضوع وحي نقدر تبقى يحلو قلت حركة استوى عوليان ليه ترى كودي وحكيتني markaasuu leeyahay ninkaasi waa hobyada ma tegin meel kale lama tegin ilaah baa sii caafiyo ana ilaah baa isiin kara marka hawkarka iyo waxa igu waday gaday halka waxa la yiri gabaygaas iyo hadalka qorleeh ayaa nimankan guurdoonka ah ee hobyatiga Axmed Buraale hoosoo ka sii horeeyay ka ayaa cali sharmaarkay ka ayuu maqlay kaas ayuu ka xumaaday gabaygan uu tiriyay hadda uu tiriyay caladeere iyo nimanka xiriirka ah uu kaga arsanayay ka hore qorleex ayaa leeyahay waana wax maanka geli kala sheeka mangala tixdaas cali sharmaarke jawaabtii ugu horreysay oo ka soo noqotay waxaa iska lahaa allah u naxariistay gabayaagii la oran jiray qamaan bulxan qamaan waa ogaadeen waa reer cabdillo oo waa reer xamdulle nimanka la yidhaahdo bahamagan ayuu ahaa wuxuu ku qolan yahay hal caleere iyo Axmed Buraale iyo nimanka loo gabiyey hobyo loogu gabiyey markaa sidaas ayuu kusooyiliyey qamaan haddaan ka idhaahdo eraya gaaban wuxuu ka tirsan yahay qoys maansadu ay sal iyo isirba ku leedahay oo waxaa kor uga weynaa ninkii gabayaaga weynahaa isna oo la oran jiray weerar bulxan oo gabayada jacaylka ah ee dareentaa kala tirin jiray oo gabadhii la oran jiray mulaaxo ilaahay ku jaanjaamay ninka ayay walaalahaayeen oo kor uga weynaa qamaan marka gabayaa keliya ma ahayn nin wuxuu ahaa ka muuqda nabad iyo colaad geygii iyo wadankii uu ku noolaa ciideed wuxuu ahaa xilligaas oo ahaa waqtigii dee uu noolaa wuxuu ahaa nin daraawiishta ka soo horjeeda oo iyaga iyo sayidka qoyskooda waxay ku culloobeen arrintii la oran jiray kala kacee gurdumi iyo gondagooye ayay ku culloobeen markaa halka ayuu daraawiishta halkala ahaa gabayo badanna ugu jiray sayidka inkastoo markii dambe 1920 markii ay taleex iyo nugaal ka soo jabeen daraawiishtu oo xagga webi ay soo aadeen ay ka ogaadeen fariisteen qofaxay uu ka mid ahaa qamaan ogaadeenkii noqday daraawiishtu markaasna wuxuu tiriyey oo sayidku xakaayay sayidka isku arkeen sayidka ayaa gabay yiri maalin maalmaha ka mid a markaas wuxuu tiriyey gabay uu isaga ula jeedo oo iska caddaan oo soomaalida dhexdeeda hadda caan ku aho walla ina ragaw tale adduuntaada ulma aho isaga uu la jeeday ayuu tiriyey qamaan maalinkaas wuuna ku badbaaday qamaan bulxan wuxuu kaga duwan yahay asagii kale ee gabi ogaa xilligiisii waxaa la oran karaa waa gabayaagii murtida shaacir oo xikma marka gabay kasta uu leeyahay waxaad ka heli kartaa murti ballaaran oo soomaaliduna aad bay ugu mahmahdaayo iyagoo aan aqoonin qalaan leeyahay ayay gabaygiisa hadalka ku quruxsadaan maalinta ay wada hadlayaan ama ay fadhaan isugu yimaadaan waxaa ka mid ah iyadoo badan aan la soo koobi karin adiga nin baa kula daydaeyay daalna kaa badan aan doonahayn inaad hashanadaayina idkaaliya dadkuna moodi duul wada socdaan wax u dahsoonayna dallana ma laha aakhira haddii loo kitaabtay tii uu ku lahaa mar kale waa kii lahaa intaad caana iyo wiilkaa lala cabsoodaaya waxba calaacal kuma yaal haddii cays lagaa dhigo ee cadaabkii ma iibsado ninkan cadilkiis badin oo dagaalka marka uu kaga soo horjeeday mar kale waa kii lahaa wax cadaabka loo hora dhigaa culimo duug weyne isagoo cibaadoonahayo camal ka eedaay isagoo ka naar mudanhayaa ina casow gaari qamaan ninkaasu ahaayo waxaa la yidhi 1928 ayaa nin isla reerahooda ahayd uu dilay halkaas ku dhintay haddaba tixaan ugu jawaabaya cali sharmaarke waa tix xoogaa cabasho ay ka muuqato oo uu leeyahay annaga qudhayadu haddaad busatantihiin gablana waa idin siinaa waana idin soo raa kumana hadallo mana gabayno dadka aan wax siino marka gabay eer sheegad ah siga laftiisana uu ku leeyahay haddaad gobanimaad sheegatay hanti iyo hodantooyo ayaa sheegatay sidee ku dhacday wiil yaroo haracoo kalaa intaad haddii aan kuu ron yahay ayaana hayseen waad marti soorteen in haddana ka cabato labadaa hadal ayuu leeyahay laba isqaban kara cali sharmaarke maaha wuxuu yidhi qamaan bulxan halkaad cali sharmaarkowna tiri waa hufiya been halkaad cali sharmaarkowna tiri waa hufiyo beene waxbaan heli kara wadna tiri wadna hibatayay haranka iyo faanku waa hayad kala dheer halkaan cali sharmaarkowna tiri waa hufiyo beene waxbaan heli kara wadna tiri wana hibatay war haranka iyo faanku waa hayad kala dheere isku helin
بل قد حجذك ذذلو اسكورين بل قد حجذك ذذلاني قبني موضي وذنته هبا لقوسيه محاد وتيري والمرتي هيري بنت عزيز هركتي ميلا هشيقة بريس بريها شركة هريا هذو ذي لنبرني ذا لقوها بوغايو هشقو ذا عديو لتيغا كروستا حنواي هبكو ذا عيو قبران هكي لك الدوينين هسا وديرو وليبا إبا شوائي لحظة نبيو شجعين هرا لمبوياني إيا تلبت عسكاري أنا بقلين يحبكيني مجرتين حبنو قولان ماري هذا الكيموداي هرتي وحن كنا حيث وحميدي قزد الموذاني إذن كايسني ماذا قولي هلع وقاديني إيقنا ما يخلع سيدات هذا قصرتيني وليانا لا هوري يعيدو سو هذا الأفوام ويقام بالحن وقتهاي كانت وحا قمان labadaas dhexood ee la isdhaafsaday kolkuu maqlay waxaa dibadda ka joogi waayey oo isa soo kilkilay cali aadan gorayo waa cali dhuuxo waa dhulbahantoo waa garaad faalaxo waa reer cali deri reer gorod nimanka la yidhaahdo gorod xisi ilaa hadda gabaygu wuxuu joogay cali sharmaarka iyo qamaan ama haddii si kale loo yidhaahdo masheerteen iyo ogaadeen cali dhuux markuu ku soo biirayse silsiladii waxay noqotay harti iyo ogaadeen cali dhuux ayay hartinimadu keentayo hatiga ayaa kala ah baa la yidhi laba bohoodo baqan dhicilay iyo baa'ud ballaacag baqan dhicilay baa waxay tahay dhulbahante iyo geesa guulle iyo liibaangashe iyo qolyo kale baa'ud ballaacagna waa masheerteen iyo dashiishe iyo wasangeli haddii la doonana saddexdaa habar masheerteen ayaa la isku yidhaahdaa cali dhuux wuxuu ku jiraa raggii gobaysana dhashay waa tiir weyn oo ka mid ah tiirarka maansada soomaalida wuxuu kaloo ahaa nin colwad badan ammaan duule dhaca geela ku dadaali ogaayo goor walba si uu u soo qaado u duuli jiray waxaana weli la yaqaan gabayo uu arrimaha ka tiriyey kuna taariikhayey wuxuu ahaa nin isaga iyo sayid maxamed ay aad isu yaqiineen isku raas ayay ku dhasheen wuxuuna ahaa dee waa qoyskii sayid maxamed dhalay sayid maxamed hooyadii casar seed magan oo iyada qudheedu ahayd reer cali geli oo reer khayrna ka sii ahayd marka asaaskii daraawiisheed iyo dhaqdhaqaaqay gobonnimadoonku sayidku uu asaasay cali dhuux bilowgiiba wuu raacay sidii ay yeeleen qoladii uu ka dhashay ha yeeshee wax yar kadibba wuu ka soo baxay isaga oo qoonsaday kala dambaynta iyo nidaamkii uu sayidku xarumihiisii ka sameeyey sida gabayadiisii dambe uu ku sheegay wuxuu cali dhuux u jeelay jaantaa rogantii reer miyigii soomaalida marka ayuu isaga soo tegey markaas ayuu af iyo adinba sayidka kula diriray wuxuuba isku dayey reer caligeli oo ciidanka daraawiishta tiisdhexaad u ahaa inuu ka soo saaro ilaahayaasna wuu ku guulaystay inkastoo rag waaweyn oo ismaaciil mire oo kale ahi ay docogaysigiisii ugu soo loodsami waayeen ingiriiska iyo soomaalidii u adeegaysay markii ay 1920kii xarumihii daraawiisheed ciidamada xooggale kusoo duuliyeen ee ay dayuuradaha ku baabi'iyeen ee mujaahidiintii laga golroonaaday wuxuu cali dhuux ahaa gabayga digashada ah ee ba'an ninkii sayidka u tirin jiray waa taxdiisii ahayd waa lagu digtaa duul hadduu ku daraan jiray ee daaduunka oo maxamed qabo waa ku diirsaday ee baldayaay wadaadkii wakaasii dabayshaday inkastoo waayadii dambe uu da'oobay uu ka qoomamooday kana soobad keenay cali dhuux allaha u naxariistay wuxuu dhintay 1960kii isagoo markaa 69 baarka ka jaray dulucda taxdiisan koowaad ee silsiladan hal caleere uu ku leeyahay haddaan soo koobo wuxuu kula hadlayaa qamaan bulxan wuxuuna kula safanayaa nimankii reer hobyoode ay iska soo horjeedeen wuxuu leeyahay masheerteenku waa gob waase niman la xaday oo waa niman godkoodii biyo u galeenoo waa niman eebba balaaya tusay qof aan loo dul qaadan karinna marti looga dhigay waa halcadheere oo wuxuu leeyahay halcadheere iyaga mooye cid hayn kartaaba ifka kuma noola qamaan ayuu markaas ku odhanayaa idinka oo la qola ahiba haddaad aragtaan halac oo idinku soo socda waad ka naxdaane maxaad hartiga ugu haaraamaysaa haddii ay iyaguna ka cawdeen wuxuu yidhi cali dhuux inkastoo baruur la harqiyo halaaba loo geeyo
inkastoo halloo qaloo hilbaana halaakan loo keeno marna niman hamuun beelahayn lala heshin woy hamba laguma doodine haddii uu ka wada hinsto uu hadal la yahay seedigay laguma hiifeene haya islaama horeen halac sidii hawaydoo kale idinka haruur bixintidiyo buriyo hashaare beriis heshi lagu dadiyo edda ka casaaday ululay badnaydii hobayood harima loo keeye hilbasiye hamana u shuubay halab karuurkeede habeenkiiyo subaxdiiba wow hagar laayeene inkastuu hirqado waa niman lala heshine habeenkiiyo subaxdiiba wow hagar laayeene inkastuu hirqado waa niman lala heshinayne ma jeerteen hablooda harago horiiba u tagaayay ogaadeenba waa hiifayaa hadiyo goortoos hagagabaan daynay qamaan horalla aadkaaga halaxoo isdheer laeg hadduu hogob ka soo muuqdo idinkoo laahibiiba waad wada habaartaane harti maxaad ku geeli eebbahay horor hadduu keenay warankaas oo ogaadeen ku maqan ama qamaan ayaa waxaa u raacay mid kale oo uu ganay nin gabayaa ah oo seeroqbiyood ahaayo la oran jiray gooni cabdixaatim waa casmaan maxamuudo waa nimankii seeroqbiyoodka ahaa gooni cabdixaatim inkasta uusan sida cali dhuux iyo qamaan caan u ahayn haddana xilligiisii ma uu ahayn labadaba nin wax u ogaa wuxuu ahaa nin gabayaa ah wuxuu ahaa ninkii sayid maxamed ugu baleeray gabayga waxaana dhex maray gabayo halxiraala ah oo ay socodiyeen oo car ayaa sheegay iyo cajabe waa cajabe sheega ay u yihiin dhextaalo gooni cabdixaatim wuxuu ahaa nin ku hadla had iyo jeer afka sadanada reer kenadiido markii gabayaysaydka uga yimaadaan wax ka sheeg ah ninka ka jawaabi jiray ayuu ahaa marka wuxuu kaloo xaanku ahaa wuxuu ahaa nin faan badan oo wuxuu leeyahay geeraar aad uu ugu faanaayo uu leeyahay haddaan hobyo joogo oo reer hebel ahayo ilmo hebel aan la joogo oo dadka oo idil cid aan wax u ogahay lama arko xataa ninka aan dilo mag layma weydiin karo bahalka ayaa iska cunaya geeraar caynkaasoo uu diiyey waa faan xabu wuxuu kusoo dhameeyey haddaan dhiidhiya maanta oo dhilfo oo aan wax laayo intaan dhoobta suldaankiiyo dhalin reer maxamuud iyo ilmo yuusuf dhex joogo dafoor wiilaan ka joogtay dhurwaagoo cunan mooye mid ageelkama dhiibo tixdiisan kolka wuxuu gooni ku leeyahay ama uu kula hadlayaa nimanka la yidhahdo ogaadeen iyo qabaanba marka ugu horreysa wuxuu leeyahay tixdii cali salmaaka kaftan bay ahayd maxaa ogaadeen kusoo kiciyey oo ay kaftankii kaftan ugu qaadan waayeen inay dhab uga dhigayaan arrinta haddiise haatan dhab laga dhigo wax martida ay siiyaan oo ay hadda ku faanayaan qaban ku faanayaan miyaa jirto oo maba haystaane dii alla kuu roon yahay bursi ama masaga ama haruur waxoo ay mataqaanaa ka duulayo aan la kortegayn oo la iidaamin wey waxay martida siiyaan way annagoo kale yihiin markaas wuxuu ku faanayaa isagu maadaama ay hablooda yihiin xerna joogaan yani timirta iyo xeryaha qamaamadan iyo dii alla kuu roon bariiska kala nooca iyo waxaasoo hobeeyaala laakiin aan xero ogaadeen oolin ayuu ku faanayaa marka wuxuu leeyahay waxba ma haystaane inaad dadka u qashaan mooyaane markii marti idin timaadee haddayna xoolaba lahayn maxaad ku faanaysaa tixda gooni halkaa ayay daahmata markaasu wuxuu yidhi qarsan waa ogaadeen halkii qooqa loo yiri qarsan waa ogaadeen halkii qooqa loo yiri qarfa kulul rag soo maray hadduu irin qaraabaysto qaranka sooryada haddii laysu qaardaayo qabaycana laga buuxiyo qadama keento qabaycana laga buuxiyo qadama keentaane qursi qooro lagu soo rido qac ka ololaayo yaad qaar ka dhowsaan intii qoyska loo galo ee maxadkaga
wasliisan martida waaba qadiso qabuuliyaadiyo bariis qali lagu iibshay heryaha qamaamadan barnida qaarka hore saara qadar maraba qaafiri xalwa qalabka lulkeeda intaasa qurac loo baxshaa la ismaqaame warintaasa qurac loo baxshaa la ismaqaameeyo qoladiina reer faaraxbaan qadow ka foofayne madadkaydun qali xoolawaad ka khatanaydeen wiilgooni sida uu qofkii dhegaystayba dareemi karo gooni waxaad moodaa xeerarkii silsilada maanso in uu ka yara bayray markii uu xarafka dhaafka ka gebiyey iyada oo lagu waday ilaa xarafka haada ah marka taana waxaa ku qabtan doona qamaan oo iska leh gabayga soo socda labadaas waran ee gooni iyo cali dhuux ay ku soo halgaadeen markii dhagaha loogu subay qamaan aad buu uga kululaaday waxaa u caddaatay xaajadiiba kaftan iyo xifaalaba in laga weynaysiiyey dagaalku inuu hartiga dhab ka yahay ayna isugu qayshadeen markaas ayuu tiriyey gabaygan aan marin doono oo si weyn uga culus ugana kulul kiisii hore ee uu cali sharmaarke ugu jawaabayay wuxuu halkan ka afeefanayaa godabta ay gabayadu dhali doonaan hartigu inuu yeelan doonee aan isaga iyo ogaadeenba maanta iyo beriba wax ka saarayn xalay dhalayna ay ka yihiin midda kale waxa uu qoonsaday sida muuqata cali dhuux oo hartinimada masharteen ay wadaagaan darteed u soo hiliyey markaas buu u sheegayaa inaanu ahayn nin uu garabkiisu bannaan yahay oo gabay lagu daaduumin karo wuxuu tirinayaa kuna faanayaa maansayahano wada maawi miiran ah oo ilmaadeer ay ahaayeen sida saaxib qamaan iyo dubbad hiirad iyo cilmi raaga iyo cabdi xirsi iyo shaywaal iyo qaar kale oo u darban maantii ay haad ka helaan inay warmaha maansada ku tumaatiyi doonaan gabaygan ayuu markaa wuxuu u sii dhiibay nin ay hilba ahaayeenoo la oran jiray guraase xaaji cali oo madaxa carrahaasti markaa ambabax u ahaa wuxuu yidhi qamaan guraaso haweyste haddaad naga hagaagayso hawalalaama jiifay haddaad hilayga awsartood faraska hinsaha cuddoon hedda kaga yeesho guraasow haweyste haddaad naga hagaagayso hawalalaama jiifay haddaad hilayga awsarto od faraska hinsaha cuddoon hedda kaga yeesho od horay u sii mari waddadu wahad qara weyne calaqa iyo gajada haddaad hoyata od gaafto ma jeerteenku waa hodan yahay halayga gaarseeya hidda boqor ma sheegine kuwaa midigtaaneeda haruubunu ka raaxo kuwaan horayba eedownay hogta godan biyugu haraan horinta reer yuusuf warmaansadu huqday tarihiyasaan lagu heshin doonin halaagii ka dhaaca labada reer oo hurguma reebi maansadu huqday tarihiyasaan lagu heshin doonin halaagii ka dhaaca labada reer oo hurguma reebi inaanan hortii hore ahayn una hoggaan jirin baloogaada wataad harta wiilkurta taho afarta higaasa ee miyaan kala habowsiiyey hadama ugu dhigay shiksidii tagabsi waa ceebe ma hawadiyey waayaha kan waa igu higaagnaayee sida gooni har lama jafee hilin cadmawjeexay halna waxaan ka idhi dhalashadu hanaane ceefaanay hiraabiyo hawiiyo intii hilib islaameeda habow kama tagana wiilintuu hawka orangeeda hidda xumo bahyaaqub nin ogyahay mafaaqido hareer waxiga xiga saayido yeeraadii buuxdaaye dubbad hiidad hee laguma ridin hanadkii dhuubnaaye cilmi raaga iyo yuusuf waa hoos dhigii maqan xasan iyo cabdiina waylahayd hadiisamaysaan eshay waalnaa horintii lahayd hadalkii loo sheegi
حسانية عبدينا وياهي بني سميساني شي والله انتي لهيد هذا الكل الشيء انت سوحك ايقا قوضا اما سهداني والله قرديكي مال انتو هيرب كجيتو هلنا وحن كايري وانفعوتون قوري شيرك هدان هيك نقول وين اسان نبدان وهلاجو وحانا ليقو هويري ميسانا بلادن لو هارتو نقول هالعنتانا بدنا لقاها منقوين هم باينتان كسوقي هباهي وذنكي وياني البدوفا نوغا مدوانا هرقو قاري نقول هالعنتانا بدنا لقاها منقوين هم باينتان كسوقي هباهي وذنكي وياني البدوفا نوغا مدوانا هرقو قاري idinka u hardaamaye anfaco malaha hawshaasay warmaadhay sataan waxaad dhigteen dirti harwey طبعا buu hayaa ku naxariiso tixdan soo socotana waxa iska leh bidir qamaan arinayada oo halka maraysa iyada oo gabayadii la isku qoonsaday oo maansayahanadii labada qolo mid waliba uu dhab isoo ilaalinayo ali dhuux safara soo galo wuxuu ka baxay ilaaday haladigeed iyo casho ogaadeen oo uu min dhisma ku ahaa ama in la yaal sida dadka qaar u yaqaaneen wuxuu ka qabay nimankii uu gabiyay reer magan warfaa waxa uu dhaxlay haweeney la oran jiray Mihiya Cali oo iyadoo reer magan ahayd oo reer dalal ka sii ahayd oo u dheeduna gabi jirtay Ali Dhuux oo reerkiisii ama baxwa ayaa hadda habeen wuxuu la hoyday gabaya ay isku qora ahaayeen oo la oran jiray Birir Qamaan وأنا البحنت وقرأت فارحه وأنا ممكن اللي هذا ورفاء أحمد كل كان نبى وحبا لو حسوستا بريد وحا لو حسوستا تحيسي هداها هم بدا إيو نقان وناقا مستيدا كسابسنا مستيدا أو وحي الله يالله هرو أيام مدد كمي راحيت نقان مدى واوين إيه بلشدي سومالي ميقا أي أدو إلى علي ترتي سيرو كالي مستيدا أنا وحا لقا إذا تريب كلبا وحي اللوكي إني هم بكا سوفيتا dumarku markii ay wax soo hagaajiyaan ee matida lagu sooro waxba inta badan ma reebtaan meeshana wax la kala reebaa ma ool marka wuxuu dhaqanka Soomaalidu ahaa gasinkii lagu sooro inay rag wax ka soo hanbeeyaan oo dumarkii soo wanaajiyay iyo reerka dhamidii oo laga yaabo waxa waxay haysteenba inay matida soo horiyaan wuxuu xitaa ambadu ahaa mid ay bulshada ugu fiirsato oo cidii ku xadgudubta lagu xadeeyo حتى واحد لو في سلسلة حالية لو جاي سيدا أي مرتزو واحد وقعونه سيدا فنعلا لله الصديقية ماشي واحد لقى قاعدة أنت يخاصو قرنتها يعني الجيسح يوحي لمد بعد أن هدى أنسلينه صومالي دحلي لا سيدا أنصر عليه أنقصو دوان ليه هذه يقول أخي معها حنبرة أيوه تحكم الانسلين وحونا أقبل الانسلين ولا جرحتي سي اللي هذا إذا قال ما أقعن وحوكم ما أغير أساعتي وانك كلها وتكدر والله يا عبد ولا مرياي أفرتي إذا واحد هنبضوا وأخي ها هاتو وحي غير كلمات جين كلا ويقن كأوجاله صدها ولا يكوي ولا يقرن هذا واستدين إنه قبيلنا ورا والد كان عاين لمن بقى تذكر وحب كثرة وعن هالحين وحكوا يلا سيدا إذا كلا هو بلينني مركلنا وانك لها فندق جرد اللون بالحياة فالحمد وتريه كل حد يفتح له ده صدفة الكوينا هي فرسمايستا سيدا إذا كلا ين لفان بين بدي روحها قبياق عين كاسح سيدان سو شيغنayna waxa habeen soo martay Ali Dhuux oo markaa ogaadeen aan babaxwaha waa barigii korku ka jarmaadayay ayuu koroosii ballamay tixdan soo socota ee tixaha silsilada hal dheere kuwa ugu caansan lagu tiriyo soo hadaba ku boorinaya inuu iska ilaaliyo wax kasta oo gabay isaga iyo qoladiisa u soo jeedi karaya ayuu birir wuxuu Ali Dhuux ku yiri عليو وقت يهدادين كدر قادو عليو وقت يهدادين كدر قادو عليو وقت يهدادين كدر قادو هوتك هذا رئيسي وعلادو وين على هشيسي جدكوا حبيبي هداد ورسالة دفتو قادين كنتو ديو هداد هرادي قاد وقالين كنتو ديو هداد هرادي قاد
haddii lagu hormaro ardaaheedan lagu geeyo wadkaagii horteesoodyo waa kuurtiraane halabca neediyo haddii hilib lagu keeno wadkaagii horteesoodyo waa kuurtiraane halabca neediyo haddii hilib lagu keeno hab wanaagsan yeel dheefta waa laga hambeeyaaye ama halac ku dayo waa wixii hoday ogaadeen allowma la ballamay muxuuse ka yeelay kordhow sida inoo caddaan doontaa ballantii iyo gabaygii beriir dhaga awdan kuma dhicina dhaga furan bay ku dhaceen cali dhuuxna goosdambeedka ayuu ku qabsaday isaga oo aad u dhiifoon ayuu xero ogaadeen tegey garabtii dambe isaga oo reerkiisii ku carraaba ah ayuu la kulmay nin la odhan jiray axmed carab afey oo qolyaha uu xididka la ahaa ka mid ahaa siday u sheekaysanayeen ayay galabgaab noqotay markaas buu cali dhuux meeshii ay fadhiyeen ka heleyshayo si uu reerkiisii ugu dheelmado ha yeeshee axmed baa ku dhegay oo faraqa iska laalaadiyey wuxuu ku yidhi calow reerkayga iyo kaagu isku mid weeye oo wixii koo yaalli kanba way yaalliin waxba guuraha ha ku falinay halkanba isaga hoyo oo caawa nala joog cali dhuux dareen baa hadalkaa ka galay ballantii beriir baa ku soo duxday siga qudhiisu wuxuu ahaa nin mar walba digtoono aan damanayn wuxuu is yidhi sow caawa adigoo reerkaaga muuqdo intay reerahani cunno ku soo hoos dhigaan laguugu gabyee sidaana ku ceebowday markaas buu iska soo taagay durraansigii iyo docodaysigii in carab afay tix aad u culus ayuu garabtaana tiriyey taasoo hartigii uu ahaana uu ku ammaanayo nimankii ogaadeen ee u dhex joogayna uu ugu daraanayo duuceedu waxay tahay anigu halac oo kale ma ihi meeshii qodaxdu iigu dhacdo iskama habsado oo kuma hoydo sidaa darteed axmed carabow raalliga ahow wuxuu iloobay madaha xididkii uu la ahaa waxbana uma reebin tol iyo xidid markii la yidhaahdo dhaqankii hore ee soomaalida mudnaanshaha waxaa iska lahaa tolka wuxuu cali dhuuxna ku ra'yi ahaa ninkii gabyey oo yidhi waxba yaanan xidid waa sunne seediyaaldayne oo hadday cibaadadu faral iyo sunno tahay tolka iyo xididkuna waa faral iyo sunna oo tolka ayaa faral ah xididkuna waa sunna wuxuu yidhi cali dhuux axmedow gabwaahadimadeed hadalka qaarkiise axmedow gabwaahadimadeed hadalka qaarkiis axmedow gabwaahadimadeed hadalka qaarkiise hogagelinta hasa waxaadna hoojiseen gooxa hoy baaban leeyahay aroos ku habbantaagiisa isagaba hiraab iyo durduur hari mawaatiile isagaba hiraab iyo durduur hari mawaatiile haruur waa diyaar haraaba gool waana la hubaaye canaha haleebadu ka badan haraada xeeldhaaqe haddaayaba wax waysiin lahayd hagaarladayde nin halgaaban oo hidow adigu hadaysaaye marse haddaanan hawraarsan iyo ha ku odhanaynin maxaa dacalka ii haysataa waa habeen dumooy ninkii haybadlii maanta waa hogeeyay meeshii halmaan kaga jiru hanad ka tirsaaye afarta hadii lagu ballamay hawma kaga sii afarta hadii lagu ballamay hawma kaga siiye hambararaqdee qafle waa kala hawoodaye hafti qamaan sheegay iyo haba waa mawdiide sidaa ayaa hoosyada ma waan kala habowsiiyey hogsaarkeeda layskuma baashee haybad ma u yeelay ama waxaan ka idhi anigiiyo heerinimadayda runba hadalku inuu ka yihiyo ihollinaysaaba hog ha kuugu soo dhaco haddaad ku hindisoonayso haweenkiio ogaadeenba waa hoos ka garabe
ha kugu soo dhaco haddaad ku hindisoonayso haweenkii ogaadeenba waa hoos ka garabeede meeshii habeen ugu dumay habas yidhaahdaani noohoyo anoo reer iskale waanan xumo mar haddaan iiga sol ku xiro waa halwaanayaaye waan la helay heshiga beriis hilib la gedeeye iyo hadabka dhulkeeda oo hama laga buuxshay habkaad yeeli leedahayd haddaan kugu hoggaan raaxo haweey kullaytiyo midgaan horreeba noqon habkaad yeeli leedahay haddaan kugu hoggaan raaxo hawey kullaytiyo midgaan horreeba noqone walaygu wada hoballaynaysa dhaantadaay haweenkiiyo xaruurtaay odhan hatuf baa yimide hareeraha intiinaya gaarooya han lay xelanay dabadeedna waa lay horayn halacsidiise ninkii haybadii manse waa hogayahay meeshii halmaan kaga jiru hanad ka tirsayay afarta hadii lagu ballamay hawma kaga siin allahu naxariistee sayid maxamed wuxuu ahaa sheekhii asaasay dhaqdhaqaaqii gobonnimadoonka soomaaliyeed ee daraawish loo yaqiin waxa ay sokeeye iyo shisheeyaba u qilsan yihiin inuu ahaa aabbaha wadaniyadda casriga ee soomaaliyeed taasi waa xagga siyaasadda xagga maansadana wuxuu soomaalida ugu jiraa halkii uu william shakespeare ingiriiska ugu jiro daanta alageeri halka uu talyaaniga ugu jiro iyo abutayib almutanabi halka uu carabta ugu jiro wax badan ayaa laga qoray waayihiisii maanso iyo taariikhba sidaa darteed halkaan ku dheeraan mayno sayid axmed wuxuu ka mid ahaa maansayahanadii silsiladan harcadheere ka qayb qaatay ha yeeshee sida loo malayn karo ugama u qayb qaadan markii laga eego xiriirka toleed ee labada dhinac waxaa loo fili karaa inuu qamaan bulxan hiil u yahay isaga oo sida qamaan isaguna ogaadeen u dhashay hase ahaatee taasi run maaha inkastoo ay mala habboon tahay wuxuu sayidku ahaa qadiyad aad u culus nin dusha u sitay sidaa awgeedna ka hanweynaa qabiil qurax in loogu abtiriyo had iyo goor maansadiisu waxay u adeegaysatay qadiyadda daraawiishta iyo jahaadka ciddii daraawiish la jaarihi gabayadiisa way ku ammaanayd ciddii ka soo horjeedayna way ku cambaaraysnayd ciddaasi nin koox ama qolo tii ay doonto ha ahaatee diiwaankiisa gabayada ee daabacan waxaad ku arki kartaa qof ama qolo mar ku ammaanan mar kalena ku caayan taasina waxay ku xiran tahay xiriirka uu qofkaas ama qoladaasi ay daraawiish la lahayd maalinta uu gabaygii sayidku tirinayo ogaadeen qolyaha ka mid a oo subayr cabdille la isku yidhaahdo waa reer isaaq iyo reer cabdille ayaaba ka mid ahaa tolalka soomaalida ee weligiiba uu colaada weyn laabta ugu hayn jiray taasina waxay ku sallaxayd dabayaaqadii qarnigii 19aad markii inta uu dhex tegey uu ka doontay ciidan uu jihaadka ku galo dabadeedna waa tii la iskhilaafay gurdumi meesha la yidhaahdo ee haradigeed ku taal waatay shirqoolka ugu maleegeen waatay isku dayeen inay dilaan dabadeedna intay isagii moodeen waa kuwii dilay wadaadkii la odhan jiray aw cabbaas ee ay wadayga ahaayeen kala kacee gurdumi waa tuu dhacay ee la kala ufooday isaguna waa kii gondabooya ku dhigay ee ragga badan ee doorka ah ka laayay iyaguna waa kuwii kusoo duulaye daraawiishta badan ka makalay kuna qasbay inuu nugaal dib ugu noqdo sanadkii 1900 waa nimankuu maanka ku hayay kolkuu lahaa sida garow haruur baan kurtood guran ogaadeene garmaamaha haddaynan ka dayn goor allaba jooga insha allahu waa gurahayaan sida galmeereeda guraasiyo ilseex waa la qaban gooshka haatana ee madahayga waa lagu galgalan gaanka reer dalale gaas baa ku caran reer subayr gobosho weyntii waa nimankuu daraawiishta ku gubaaminaya markuu lahaa reer dalal waryaa doonayo duurlan bixinaya dad iyo duunyo yaa reer subayr damu ka siinaya yaa diinta eebiyo sharciga diriray oo raacay wasuw dagaha haaruun ma degin ceelkii daratoole danoodsow guraasiyo ilseex deera kuma foofin sow daahirkii oo cabbaas dayn ku maqan maaha dayrtiyo dareecdaba ma waan la isdul taagaynin duntigii ogaadeen ma waan diiq la gelinaynin dooyada ma waan lagu simayn adale daanteeda naarta la yidhaahdo saqara ee naaraha ilaah ka mid ah waa kii u bashaareeyey oo ugu bashaareeyey reer subayr nimanka la yidhahda inay kusoo socdaan oo ay dhargi doonto markuu lahaa ma subayr cabdilliyo inta diinta sidaysiiyo intii toobadda sheegtaa ka subxaana lilaah iyo saqara lagu geyn waa nimanku ku lahaa
markuu doonana haddana wuu ku faanayaa ogaadeenka oo inuu yahay oo markuu calluux oo kale iska celinayo waa kii lahaa ogaadeen haddaan ahay dad ugu amar ku reeyaaye oo ubaxa baarkaan hiyo awsa haashimahay abtaysiinaday waxay gashaa odayo waaweyn hatiga qudhooda ama qaybo waaweyn oo ka mid ah ayaan ogaadeenka uga duwanayn maansadiisa ayuu ku cambaarin jiray markii ay danta daraawiisheed sidaa ku jirto markii aysan ku jirinna wuu ku koolkoolin jiray gabaygiisana halac dheere ee soo socda wuu kula daadegayaa waxaase jiray mar kale oo uu si la yaab leh gabay kale ugu ammaanay oo isaga oo markaas jecelnaya gabayaagii la odhan jiray cali jaamac haabiil ee habar awale ciise muuse oo hatiga saxiihiisii midkood ku caayay isaga oo cali jaamac ka celinaya tudicyo koolkoolin ah oo gabay uu tiriye ku jiray ayaa waxaa ka mid ahaa oo hatiga ku ammaanayo xuseenow ninkii hagar yaqaan waa habaar qaba ee nina hayagi maayee run baan heeg u mariyaaye hartinimaan aqoon baa ku yeeray hadalka qaarkiise waa niman hormud wada ah iyo hanadyo waaweyne waa nimanka haybtoodu tahay hashirkaa kore ee waa nimanka deeqii hambaday hibe ilaahay waa niman gobbaa lagu heestaa lagu hagaagaayo waa niman haleeliyo horweyn heelka buuxsadaye waa niman xariiro huwanoo huga ku laafyoone waa nimanka haashaarka gole marada haafayne waa nimanka dooyuhu hindiga uga himbaartaane waa niman haruur iyo bariis hoyga loo dhigayo waa nimanka anfuuqayay timirta hoostaale waa niman hingaar lama watee haybad guursadee waa niman hablaha ay qabaan hararcaleeyaane sida heegadoo curatay bay shuqul hilaacaan marna waa kii saas u kolkoolinayay kolka haddana u soo noqdo gabaygiisana halac dheere ee inagu soo fool leh waxaynu odhan karraa labada qolo mid uu la jiro cid garan kartaa ma jirto ogaadeenka iyo hartigaba wuu ugu daraanayaa inkastoo laga dareemi karo xoogaa xodxodo ahoo qamaan iyo qolada uu ka dhashay ujeeda isagoo jeclaa inay daraawiish ku soo biraan wuxuu ku hungurigeliyey geel badan iyo xoolo aad u fara badan oo uu isagu siinayo una hayo qoladii ay aadeen reer hobyoodka ahaydna aysan u hayn maxaa iyagoo wax ma haystaan buu leeyahay oo anaaba dhacay oo xoolihii ka dhameeyey bal maxay ka dooneen markaasuu leeyahay aniga hadday ii imaan lahaayeen anaan marna hiif iyo haaraan aan laga maqleen una gabiyaan markaa wuxuu yidhi sayidku hunguri buu subayr wuxuu ka rayday hogobyo shaydaane mar haddaanu hedheer lahayn ama hoggaan ceja wax hubaala inuu kaga iman haraadii ciide hawiye iyo daaroodba waa haybka gooniyahe waxaan habaaro ilaah helay boqontiye bal maxaa hobyow dhigay arligu kala hoyad rool hartigaba wax badan baa ku nool hilibugaarede koluu hilaadoo kale noqdo ibilka haneedo huwan mo u kaxo kuma qadeen hodan qabeenkii nin hamuunta ka biinhaya lagu hadoomaye mar hadduu hadaadu muxarago haybadeed malahe mawaysoor yadiin heli karaan ma hagranayo hamba kaa sugya ama hohay kugu hagugyaba antii niman lahayn looma tago holaaxa jiraade hawayda aan dhacay maxaa hatufka ugeey daraawiishin fiirinimay wax badan hanatay reerkiisa waxay lahaan fariireenba waa huba doorare hada qabiil nimaan ahayn hiba miyu dhiib nimaan laysoo taagaynin waa lagu habsoomaye harga waaxidii baan ku jiray tuugahaysalehe hanqarkii rasaastaa wadnu la halcanayo iyaguba halaagan baday la hundhurayaani warguutooyinkii loo humay hadafka raaceene ma way hidin karayaan anfaco heliba mayo qamaanow hawaada meelsan baa lagu hagaajaye hidku waa hidkii idin khataray haraadigeedkiiyo hanankiina nimankii qiin weydinkii hura haddaad diinta soo haybisaan kuma hungowdeyne hadan waxaa idinku guuray hagafkii gaabnaaye hadalka keena diid buu maqlaaye hayad kale mo hadeer iyo hadeer golqallaa halaaba keenaaba hamaan idin suubilaha halabka duulkeeday haleelo
yinka idinku filan hotanuga hadeeriyo hadeer golqalla halaba keenaba amaan idin subiraha halabka dhulkeede haleelo yinka idinku filan hotanuga anaan idin hallaygan sidii hogii bariye hareertiina waan dhigi waxaad ku himbilyotaane intaad higis dhan soo qaadataan halaacna soo raacsan ilaah ku naxariisto waxaa sayidka xigay ismaaciil mire oo waa darwiishkii weynaa ee gabayaaga ah ee raggii gobaysana isaguna ahaa marka waa dhulbahanta oo waa reer caligeliyo nimanka layihahda reer guuleed waa nimanka u calaacalahaya sayidku intay ku jabeen jahaadka guuleedku wuxuu noo ahaa guurtii loo helana nimankii garaadada ahaa waa gadow jabaya ebow sidii gaantii mara waa la gaacsaday nimanku dhaawey marka ismaaciil yaraantiisii ayuu daraawiish ayuu la ambaqaaday 1920 markii ingiriisku uu cirka iyo dhulkaba kasoo weeraray oo halkaa ku tabiyeyna raggii wuxuu ahaa halkaa la soo gaaray waktigaas marka cali dhuux ayaa aad isugu dayay inuu daraasaan meel hore kusoo sheegnay inuu daraawiishta ka saaro oo sidiisoo kale markaa uu ku guulaysan waayey oo gabay uga teliyey oo cali dhuux u teliyey oo cali dhuuxa qudhiisa mar inta usoo gebiyey wuxuu yidhi waa laydin sexray oo markaasuu yidhi ima duufsan sheekh maxamed kiduubka iyo xiraaye anigaaba diinta iyo sharciga laygu daabacaye adna reer sawir daba gashay duxeeha kaa raacdo waadin baa raacdu leeyahy marka isaga iyo cali dhuux waxay ahaayeen niman ilmaaleela marka waxaa jirtay mar ay shahaado isa siiyeen intay meelaha waayeen jaamacada iyo gudka suugaanta qiimeeyo oo shahaado siiya marka gabayo ay isu diraayeen baa cali aadan cali dhuux weeye ismaaciil mire intuu bilaabay ayuu yidhi ba'da maanso cali aadan oo bili laguu siiye bushimaha nin kale qaada gabay waad u badisaaye markiisa bawda gacalkaa jabtaad boogta danaqdayd markaasaa waxa u jawaabay cali dhuux isna wuxuu yidhi ba'da gabay ismaaciil miraa buugni ku ahaa ba'da gabay ismaaciil miraa buugni ku ahaaye bayduu akhriyey weli ma oran yaa bedela kaase maantuusa runtii baalka maray bilah idin gabayo badan oo Soomaali u taqaan ayaa ismaaciil mire leeyahay kuwa ugu waaweyn waxaa ka mid ah gabayga la oran jiray annagoo taleexnaalay colka waa amaanduulaha ka ahaa ee koofil dilay uu ka dul yani kaga warbixiyey iyo hafadfurin degmada leega waa inaan fadhiistaayo gabayga uu faadumo dhoore xaaskiisa u tiriyey markii ay ta iswaayeen ay ka calacashay gabayga la yihahdo ragow kibirka waa lagu kafaa kaahla ogaan gabayga la yihahdo guguulaha gabayada tirada badan ee guwaabada ah ee diradiraha ah ee wiil yahow ilmaa eegatiba aragtidaas gabaya caynkaasoo tiro badan oo Soomaalidu aad u jeceshahay ayuu ismaaciil leeyahay ismaaciil tixdan wuxuu ku raacsan yahay ninka la yidhaahdo cali dhuux ayuu raacayaayo maadaama marka ayuu la daadegayaa nimankaa ogaadeeno oo uu leeyahay waa niman aan lahayn karin oo dee hal cadheeramada sidoodaba aan lahayn karin oo ninkii ay kusoo hoydaan waa cayroobayaa buu leeyahay wuxuu ugu dambaysiinayaa arrintii hambada ayuu kusoo qaadayaayo wuxuu leeyahay hambada dumarku waxa ay ku noolaayeen ku shaqaynayeen heerka ay ku joogeen haddii ay hambada ahayd asii nimankaa ogaadeen hambadii ay soo reebi waayeen oo waxba aanay reebin wixii loo keeno maxaa ku dhici doona arrintaas ayuu tixdan ku maamiyey haddana kaga jawaabayaa wuxuu kaga jawaabayaa si kaftan ah markaa kaftankii tixda lafteeda waa meesha ugu dambaysa aan ka dhegaysano wuxuu yidhi ismaaciil inkastaad xaqago haybadeed ula habeen roorto inkastoo hilbiyo caanageel laga hiraabsiiyo waa niman haddii loo habrado hodanka cayrayn waa wadahan gooljidanaan halina deeqayne hal hadduu ku haro xeraday dabahunbaalayne haruubgaalka cadka ku naaban u hundhurayo hininsigiiyo fenka iyo hanta murudkeeda heemarka weelka oo dhan iyo gacanku hayskiisa marna haddaanay hurahayn habluhu way kaa jiri hininsigiiyo fenka iyo hanta murudkeeda heemarka weelka oo dhan iyo gacanku hayntiisa mar haddaanay hurahayn habluhu way kaa jiriye ka hagaajinaguhu waxay hawlku galayeenay runka waxa ku dhici waa guskii hogarka weynaay kaftanka ayuu ismaaciilna ku dhameeyey waxaan xijinaynaa tixdii saddexaad ee silsilada uu ku leeyahay qamaan bulxan
qamaan burxan isaga oo aad u ceel qaba oo muddo uu hadalku u bixi waayey meel uu ka bilaabana garan waayey ayuu wuxuu maqlay in niman hafti ah oo warmoogayaalaho aan waxba ogeynin ay reeraha ku dhex jiraan oo reeraha ogaadeen waa cidahooda oo middaa ganacsato ahaa markaa ayay maalin boqore u tegayeen oo waxoodana ka iibsanayeen lana sheekaysanayeen maalinka dambe ayaa waxaa loo sheegay inay kusoo beegan yihiin markaas ayaa waxa u muuqatay tani inay tahay fursad uu ugu gabyi karo nimankii hafti ee usoo gabi jiray waktigii ay ku soo socdeen ayuu inta aqalka galay afadii uu qabay wuxuu ku yidhi nimanka soo socda ee hafti haddii ay ku yidhaahdaan qamaan burxan ma joogaa waa joogaa dhe haddii ay ku yidhahdaan qamaan ma joogaase ma jooga ku dheh markaa ayay nimankii yimaadeen markay yimaadeenna haweenaydii bay ku yidhahdeen qamaan burxan ma joogaayo markaasay garan weyday wixii lagula ballamayo hadalkii ayay siisiiday oo nimankiina meeshii ayay iyagoo taagtaagan ayay kula hadashay markaasuu inta soo baxay waa intuu sugaayey taxdan tiri wuxuu yidhi habeensooriyo nagalashay waa hadiyo laayaane nimankii haybsaday waa kuwa qiraya haybkii guriya xilkaalu waa wixii baabad yaqoob habeensooriyo nagalashay waa hadiyo laayaane nimankii haybsaday wayaga qiraya haybkii guriya xilkaalu waa wixii baabad yaqoobe iyaga intay hobaxshaan heesi dabatiile oo ku hilba qaybsada waxay hora la geystaan iyaga intay hobaxshaan heesi dabatiile oo ku hilba qaybsada waxay hora la geysteen halmaanina sharmaalku ka yimi laguna hiifaaye helada dhexdeed iyo guryaha lagaga hasow ma oynin lagu soo hirto heelan baan ahaaye hadalkayga waa laga hayaa harada ciideede hawdka la marayaan oo hagaari waa ceebe ma ururan karo buulan oy timuhu herme ma ururan karo buulan oy timuhu hermeene waxaan heli waxaan haban karo hatan waxaan haysto higiraygu wuxuu doonayaa inuu hibeeyaye namado hartiya soltamadada laankeentid buyida qaban burxan haddana aan ku xijiyo faarax caytame waa ogaadeen oo waa reer cabdille qamaan burxan bay isku qola yihiin silsiladan maanso ee halac dheere waa gabayaaga keliya ee sida tooska ah qamaan ugu soo gudmaday waayaha faarax iyo maanse wixii uu tiriyeyba waa nagu yar yihiin amaba waxba kamaba naqaan gabayan halac dheere oo ah midka qura ee naga soo gaaray isaga qudhiisa si sibiq ah ayaa loo helay waxaa laga helay gabayaal la odhan jiray sugulle xisi godgodo 1928 faarax oo ay xudur ku kulmeen uu gabayan u mariyey dabadeed isaguna 1964 casirad ugu duubay waaxdii dhaqanka ee wasaaradii waxbarashada ee dowladdii Soomaaliyeed ee jirtay gabayan wuxuu faarax ku bilaabayaa heef uu ula jeedo ama uu ku jeedinayo majeerteenka oo uu leeyahay idinka ayaaba waxa aad ku sheegaysaan ku tilmaaman halac oo oohin iyo baroor ayaa cunto aad siiseen iyo martisoor aad bixiseen aad ka qaadeenoo adduunka aad mariseen marka ayuu wuxuu haaraamayaa ninka la yidhaahdo halac qudhiisa oo uu leeyahay intuu hubyo iyo harti wax aadayo ee lagu gabyaayo ba hadduu wax doonayo sayid maxamed iyo caamir iyo taga oo gelin gaaleeye ayl halkaa awrta u horto iyagu wax ka soo heli lahaa waxa ay doonaan iyadoona loo qiyaasin oo intaasuu qaatay looguna gabin ayaa wax walba uu ka heli lahaa buu leeyahay markaasu wuxuu maansadii iyo silsiladii la aaday arrin aan hadda ka hor cidina ka hadlin arrintu waxay joogtay hamba iyo haddii alla kuuraya marti iyo cilweyne iyo hadda wuxuu la aaday xagga cilmiga markaa wuxuu leeyahay cilmiga xidigiska ayuu la aaday oo wuxuu ka dhigay xujo iyo halxalaale maansadii wuxuu wax ka weydiinayaa nimanka majeerteen ama harti afarta waaxooda degmooyinka xidigaha oo kale sida daalalida raqaha cirirka naafaha
علمي حسابته أيوه حدنا محتوى دينية وسوق عدنا يعني كل حال علينا يعني مسألة علم الفقه شريعة على الإسلام كسابسا سيدا شروطها الطهارة أيوه جورك تقول في يقول كلفتي أنت سبيوه يعني أنت بنامبا أنت بوحوك ويديني واحد من الدين ولا شيء هذا المشتري هذه أو هذا واحد تقانين تبغى واحد هذا ما تقانين ده أيوه ليه صوفر أخي ما كسر شوارع سيدا قولني أيوه فرح كبر يعني حرفتي هذا هاي اللي هو اللي ما صار سلسلة ده العبارة وهذا أخي وحو وشيفتي أما هذا كقبي دونا أما كقاعد دونا حرف أمين وحو لي فرح ما صدق بلن بايقان مريت كذي ما اتخذك على توجيه مدي عين كذي هذي كانوا من ديانات ماذا ذاك سواد مرمدا كنت رمى بني صوص المرمدا كنت رمى بني صوص الليلة ما شفتنت لا تهي ممودين وهذا رجاك يا مرعدين ما غلط هذه مسكين قلوب وين باتيه وانا المروق محمود سليمان غير ذي مريسي هل وحيد مدين واحد كم غضاني بل ما حد منفعة ذي حساب ومشاقوتي مرياسي حيرا ما حد ومراد يلك هدي موسى نوغي المذو مرادك قيسي ملوك مياغا يا داعي لقو كوني ماهيرا مغان مياغا يا قاضي ومداد كعيبودي مدح مياغا يا غايي ومدانا حدولا موحد مرتيلا سيسيبات لعاك ميسان تيما حاكا مغنا يدخل بيقا وقا مذوبات أول بوم الكالا سيايا مرين حبابيني سيد محمد عامر موسى تذود ماحو إيا متمين أنفعو أما سمالكي بالمحو هرتي من كفضوضو مسافوضي مرتي كاكان هراي ميدان دين شيغو الكاتان مدحي سيدو متن كحسابو حقيبو تواركو مرا فرق ميرا يا مدادي حقي بيته ما تغنين دي أيانت يوم أسيس يوم عسيارين مثل مذوب وفقان ما تغنين دي ما يكين ساعدو اسقر مراياني ميرا دراتي بدنا ما تغنين دي مسكي عورا ميعاد يقول انت ميقارا كبت غالب كذي كمارو مالنتي حدا مسارقا حتى إذا نحين ما تغنين دي مشتركي مريخي أدو ميرك خلافو معناه تربيعه ونغلين ما تغنين دي مالين أربعة دي عدار مقابلة بل كبت يلتوس كغمرمان ما تغنين دي عشم إذا ديوحوا ومرا الناس مذوبهاي سحلكون وحبالا بمرحلو بلا أم حي ورتكوذو وانا يسكم إلي ما تقنين دي ورما يحلالك بدنا ما تقنين دي ميادي يحسر ومتي ملعدو غايري مذبحة ذالو قبصدو ما تقنين دي بيان ويسكو قري كرين دربنا ميرين مفعلنا كو كرين ايو لغام مارمانا قوقوانا مركا كان سحين ما تقنين من مسلم حسناي مهر حينين بالوحا مشغل لها ما تقنين من مدودي هبسلي هدو قبس مريديستو موالدكي هوري وحو مرمالي آبا موقيت قرط وركو قدب كسي مغضو واحمد حلا
meel fog iska taagaraggii maanshooye badnin muquuray moolinu galiyo malagii weeyaane magli caaladii lama maro iyo miciyaane abidkayna niman mogtanahay ma jirayne haddaydnan masalada furayn maxabbadan sheegay maqlooy fagaraha muxuuga madixaaye wuxuu ujeedaa baan filayaa cali sharmaarke oo silsiladan bilaabay waase khasaaro ninka sidaa u gabayaaya inaan wax kale iyo maanso kale oo ujeediyo laga haynin eedeedase waxa iska leh nimankii inta afkaa iyo maansadaas iyo gabayadaa quruxda badan lahaa aan ka fekerin in ay u sameeyaan saf lagu qoro waa tahay haatanna waa silsiladan gabayga ugu dambeeyey waxaa tiriyey yuusuf ibraahim oo yuusuf dheere loo yaqiin wuxuu ahaa dhulbahanta oo garaad faarax qolada la yidhaahdo baalarsame maansayahanadii wuxuu ka mid ahaa weligoodba sida daacadda ah u taageeri jiray sadanadii hobyood iyo asaasaheedii suldaan yuusuf cali oo keenadiidku magac dheeraa sidaa darteed isaga iyo gooniba waxay ka mid ahaayeen daraawiish iyo sayid maxamed raggii lacolka ahaa ee u gebi jiray iyaga oo sidaasna ugu hiilinayay sadanadaasoo duubcadii wadaadka iyo iyagu ay xiiro ahaayeen intaan ognahay gabaygan aan kol dhow marin doono ee halac dheere uu ku gonaanaday iyo laba kale oo qurax ayaa yuusuf dheere laga hayaa waxaa loo malaynayaa xilliyadii dambe ee noloshiisa inuu casago amood u soo wareegay halkaasna uu ku geeriyooday goor aanaan aqoon goor ay tahay gabaygiisan halac dheere wuxuu si gaara jawaab ugu yahay kii faarax caytame ee aan hadaaye marinayay wuxuu dhab ugu ammaanayaa majeerteenka iyo guud ahaan hartigaba sidaa la marayn karo halac iyo ogaadeenba aad ayuu ugu ceebeynayaa weliba allaha ka cafiya ee sayidka qudhiisana aad buu ugu dhiiranayaa uguna aflagaadeynaya ugu dambaysta wuxuu isku dayayaa inuu ka jawaabo qaar ka mid ah su-aalihii cilmiga ahaa ee faarax caytame oo furidooda hartiga ku careeyey wuxuu ka jawaabay su-aalaha intooda fiqiga shareecada islaamka ku saabsanayd qaarkii cilmi falaga la xidhiiray sida meerayaasha qoraxda ku wareega iyo xidigaha dayaxu maro ee 28 ah faaraxna uu su-aalaha kasoo jeediyey xarf ahaan qaafiyadda uu doortay waa miin isaga oo taxraacay kii faarax caytame ka gabyayay maxaa yeelay sidaan soo sheegnay faarax unbuu gabaygiisani ku jeeda wuxuu yidhi yuusuf maansadu milgayreedihiyo marimo waayeele shir maawiya ninkii maahila madan la geeyaaye ogaadeen madiixaada maqal meheradaadiye maxamuud saleebaan afkaad marisay waa yaabay hadday mad iyo caynkee tahaad murama sheegayso wax margiya macnaha faarax oo kii manaaba leh wiilkaa wax laga fiiriyaa mooyisaa tahay ee adigay maroor kaa gashay oo sagay marinkii ee majeerteen markhaatigu sidaad maqashay weeyaane waa niman maqaawiira iyo madaxdii daaroode waa niman martabadii haya iyo maylaxdii boqor ee munbay maalka laga keenayo iyo moosinkow taga ee waa niman masuuxla u jabay iyo dahabkii miikooyo maraakiibta miiriga sida iyo maylalka u gala ee macdanbaa la dhigay daaraha muuqa sara dheere idinkay macduul idinku tahay gudubna waa maarib xaggiina maraykaan hablaha lagu mariimaayo idinkaa marqaafiga huwada ama maqaar geele mataankiiyo maryaa faraqsan iyo macawisaa laaban cimaamada makaawi ah xariir lagu muraaqoodo annagaa mardaadiga huwana midaanku weydiin markii habeen idin soo gasho wax idin soo mooday idinkow musaawira intaad mega ku soortaane war sayid maxamed kaad maqashay sow makhawigii maaha sawkaydun meeshuu fadhiyey mahadinayn maaha manjo gooye sawkii tolkaa miiddi jaray maaha mashaa'iikhda sawkii magliga mudi ogaa maaha macaluusha naagihii u lumay maatadii le'atay maxsarkii hortee sawkii kurtood maahu tire meher mawliidka nimankii ka tegay meheradii diinta kolna adig iyo hala oo mu'diya idinma muunayne mudaahanada merag baa dhaqsada mudan lahaydeene mudaakarada beenta ah maxaad ugu masaafootay halac waxaydun moodeenba waan idin mihiibsiina isaguba musjeex buu ahaa muudo keligiise ibliis baa malaag kugu mardaxan mooga haatan ahe bismillaahi maxalkii maxaa magana kuu geeyey miskiin yaa ah hadal miiqan baad nolosha keentaani hilba gool magool iyo raggaan miidda ka hegaabshay mandhadeeridan ugu daray iyo mayriq iyo dheega manfac wixii aan moodaba haddaan idin mihiibsiiye marigaasi xeerada waxaan uga muraad yeelan masaakiinta noo hawlgashiyo maatada cunad
ogaadeen maxaan lagama karo mid qudaara lehee calooshii muggeed laga badsaa mawdka waa u khalise goortuu mayibay iyo hurdada qaar u meel dhigaya sawharacmistii dhexe saqdii kiiman tagay maaha muraad kama lahayn xerihii marashadoodii iyo wixii uu mistii dhigay akhlada gogoshii maalowday maxaan muusa nacabaa haddaan weli ku maadaystin muddac iyo muddaa caley haddaynu isku maagayno oo aad mustaqirteen gartaan marag ba loo haynin sixnigaad faraha marin jirteen waa muraad qumaya ma midiidin baa tahay maxaa murugsateen weelka maqsadkeeda weesada biyaha maraysa jiirkaaga isticmaalid mooye wax kale kuma marayaane ogaadeen masaladaa ma oga maalig soo raweeya inay maa yajuus tahay gogobo magana maan sheegin meel maran majnuunad iyo baras cudurro mawjuuda shan haloo ka mid ah yaan haween meher ku haynin